مسؤولينta maamulka gobolka iyo degmada boqorada salaadiinta cuqaasha iyo haldoorka gobolka Sanaag ayaa tacsiin tiiraanyada u diray heeladii iyo qaraabadii iyo guud ahaanba shacbiga gobolka Sanaag ee uu ka baxay marxuum Suldaan Siciid Cali Maxamed oo ku geeriyooday caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa waxaana dhamaanba dadkii halkaas ka hadlay marxuumka ku sifeeyeen adoon wanaagsan oo taariikh weyn ku lahaa gobolka Sanaag iyagoo marxuumkana Ilaahay uga baryay inuu jannada firdawsa ka waraabiyo heeladii iyo qaraabadii uu ka baxana samiriye iman ka siiyo suldaanku wuxuu ahaa in ku caan baxay asluub wanaag iyo nabadgelyo jacayl iyo amaano intaba wuxuu ahaa shakhsi wanaagsan oo aanay u kala sokayn dadka deegaanka oo suldaanka u ahaa taariikh nololeedkiisa suldaanku wuxuu ku dhashay gobolka Sanaag Ceerigaabo meesha la xadhaad 10 jirkiisa beelaha wuxuu xadhagiyay cadan wuxuu cadan ku qaatay iskuulka ilaa hoose dhexe ilaa dugsi sare cadan buu ku qaatay oo kaga baxay waxa loo doortay nabadoon baabeeshu u dooratay 9 waxa loo doortay suldaan 9 wuxuu ka horeeyay qurba joogtu u badnaa xagga qurba joog buu ahaa intii ka dambeysay wuxuu ka shaqeynayay dalka gudihiisa nabadgelyada ayuu aad uga soo qaatay kaalin aad u ballaaran suldaanku waxa suldaan qiimo iyo qaaya leh nin nabadeed nin qoyo socda afkaaban munaafaqada aqoon lahwiga aan aqoon nabadda jecel masaakiinta u gargaari jiray wuxuu ahaa suldaan in badan soo wada shaqeynay runtii suldaankeygii dhinacayga midig buu ahaa wuxuu ahaa suldaan aan isku degaanahay adoon wanaagsan baan ka marakacayna dhammaanteen dadka gobolka Sanaag iyo dadka Soomaaliland ba samiriye iman Allah ka siiyo suldaan aad iyo aad u da'weyn oo dadkii nabadgelyada gobolka Fariisiya oo nabadgelyada ka shaqeeya dadka shacabka isku xidha suldaan weyn buu ahaa haliyeeya oo gobolka aad iyo aad nabadgelyada uga soo qayb qaatay waxaanu leenahay inna lillahi wa inna raaji'in waxaanu halkan taxsiin tiiraanyada uga diraynaa annagoo shacab weynaha iyo xukuumadda reer Sanaag Suldaan Siciid Cali Maxamed Aadan oo kamid ahaa salaadiinta dhaqanka ee reer Sanaag oo ku geeriyooday caasimadda Soomaaliland Hargeysa shalayto la sheegay waxa suldaan caana oo ku caan baxay adkeynta nabadgelyada midnimada bulshada reer Sanaag wuxuuna qayb libaxday ka soo qaatay walaalayntii midnimadii sukeenkii beelaha reer Sanaag ay isugu yimaadeen ayahooda nabadgelyo ku qaateen waxaan maanta halkan ka tacsiyadeynaynaa Suldaan Siciid Cali Maxamed Aadan oo ku geeriyooday caasimadda Hargeysa Jamhuuriyadda Soomaaliland sidaa darteed waxaan leenahay marxuumka jannadii firdawsa Ilaahay ha ka waraabiyo adoon wanaagsan buu ahaa wuu marxaati kacayna waynu wada niqinay isagoo marxuumkaas si laga soo sheekay marxuum qayb libax ka soo qaatay ama kaga jira meel qiimada kaga jiray salaadiinta dhaqanka iyo Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag kaasoo ka soo shaqeeyay wax badan nabadgelyada gobolka Sanaag dadka halka isugu yimid dhamaantood oo ah salaadiintii gobolka Sanaag suldaamadii boqoradii uqaashii maamulkii gobolka maamulkii degmada dhamaantood waxay tacsiinayaan suldaankii ka dhintay gobolka Sanaag oo ahaa Suldaan Siciid Cali Maxamed Aadan oo ahaa suldaan caana lana yaqaano ahna suldaan nabadeed nabadda ka shaqeeyay xishooda Ilaahay ka baqa oo diintiisu ay tahay diin quwi ah marxuum Suldaan Siciid Cali Maxamed oo shalay aas qaran looga sameeyay caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Hargeysa ayaa kamid ahaa salaadiinta waaweyn ee gobolka Sanaag waxaana suldaanku kamid ahaa rag iyo caanka ku ahaa taariikhda weyn ku lahaa nabadda iyo midnimada bulshada gobolka Sanaag iyo Soomaaliland waa Maxamuud Maxamed Xasan Saraaf TV qaranka Soomaaliland Ceerigaabo